Asalaamu calaykum daawade kusoo dhawow Islamic Technology. Kaina Master waa mid ka mid ah applicationada lagu edit gareeyo muuqaalada ee ugu wacan uguna muuqaalka quruxda badan leh waana mid ka mid ah barnaamijyadii ugu horreeyay ee la soo geliyay Play Store-ka iyo App Store-kaba. Kaina Master waxa lagu sameeyay update-kii ugu wacnaa ayaa bishan lagu sameeyay waxaana lagu soo daray feature aad iyo aad u xiiso badan. Sidoo kale waxaanu ku haynaa version-kii ugu dambeeyay Kaina Master ah oo boqolkiiba boqol bilaash ah. Kusoo dhawow muuqaalkan. soo dhawaada saaxiibayaal mar kale barnaamijka Kaina Master baynu soo furi doonaa waa kan barnaamijka halkan inoo yaala sida awgeed hal mar baynu taaban doonaa kadibna barnaamijkii Kaina Master sida ku muuqata oo soo kacaya intaa kadibna waxaad arki doontaa halkan ayaad ku arki doontaa run ahaantii interface-kana arki doontaa ama waxa laga yaabaa inaad interface kala aragto oo kan oo kala ah kan hadda soo baxay ama inaad aragto interface kan oo kale inaad aragtaa laga yaabaa waxyaabahan meesha yaala ama boostiyada inaad aragtaa laga yaabaa sida awgeed qaybta laga maamulayaa qayb kale ma aha waa optionadan hoosta yaala marka optionka koornaha haddaynu ku dhufno midigta yaala waxa weeyaan waxa ku tusi doonaa haddii aad account ku leedahay Kaina Masterta sida awgeed account hadda anigu kuma lihi Kaina Masterka sida awgeed dib ayaan uga laaban doonaa sidoo kale qaybtan run ahaantii ay ku qoran tahay create haddaynu ku dhufano waxay noo soo bixi doona marka interface-kan ay noo soo bixi doona interface-kani waa waxyaabo aynu hore ugu soo qabanay halkan inoo yaalaan sidoo kale halkan waxa inoo yaala waa halka projectada lagaga soo daro ama muuqaalada lagaga soo daro haddaynu taabano tusaalahaan update-ka lagu daray haddaan idin tuso waxa ka mid ah berigi hore waxa ooli jiray kan muuqaalkan iyo kan ayaa ooli jiray saddexdaasoo keliya ooli jiray laakiin hadda eertoole waxa lagu soo daray kaas loogu talagalay tiktoka iyo reeliska iyo muxuu ahaye shortska loogu talagalay iyo kuwan oo run ahaantii kan oo kale documentariyada gaarka loogu talagalay iyo waxyaabahan oo dhanba run ahaantii waxyaabo badan oo lagu soo daray baa ka mid ah sida awgeed qaybtan dib ayaynu uga laaban doonaa sidoo kale haddaynu halka ku dhufano search-ga ee hoosta haddaynu ku dhufano waxaynu arki doonaa halkan run ahaantii waxaad arki doonta waxa loo yaqaano projectska waa waxyaabaha ugu muhiimsana lagu soo daray waa muuqaalo run ahaantii diyaarsan laakiin markaad dhex gasho oo aad ku dhufato waxaad run ahaantii aad ka bedeli kartaa muuqaalka waxaana soo gelin kartaa muuqaalkan marka muuqaaladan waxay leeyihiin tagas animation waxyaabo diyaarsan bay leeyihiin kadibna iyo transition aad u qurux badan bay leeyihiin kadibna marka adigu aad dhamaystirato oo ma garanaysaa muuqaalkaaga aad ku bedesho ayaa waxa ku soo raaci doona animationadii iyo waxyaabihii la socday quruxda badnaa waana update-ka ugu weyn ee lagu sameeyay run ahaantii qaybtan waxay leedahay xagga sare haddaad u fiirsato waxay leedahay categories qayb ayay leedahay kala duwan sida kuu muuqata sidoo kale halkan sare waxaad ka baari kartaa waxyaabaha aad adigu u baahan tahay waxa ku jira run ahaantii projectyo aad u fara badan waxa ku jira cuntooyin vlogs education waxyaabo fara badan baa run ahaantii ku jira inaan soo koobi karayn sida awgeed qaybtan kalena waxa weeyaan qayb boosti ay yaalaan boostiyo run ahaantii iyagana laftooda aad la soo degi kartid waxaan rajeynayaa qaybahaas oo dhan inaad aragteen laakiin qaybtan waynu kusoo noqon doonaa search-ga oo waxbaynu ka baari doonaa waxaynu u baahan nahay oo run ahaantii tusaale ayaan bixin doonaa projectska ku saabsan laakiin kahor intaynaan qaybtaas u gudbin waxaan rabaa inaan ku noqdo halka create ay ku qoran tahay kadib markaynu ku noqono halka create ay ku qoran tahay waxyaabahan hore aynu wada aragnay laakiin waxaan rabaa inaan idin tuso version-kani nooca uu yahay sida awgeed marka ugu horeysa waxaad ku dhufan doontaa halkaa ay ku qoran tahay calaamada settingska kadib marka halkaa ku dhufato intaa kadibna halkan run ahaantii hoosta waxa yaala version-ku nooca uu yahay waa version-ka 6.0 loo yaqaano weeyaan waana version-kii ugu dambeeyay hadda ku jira App Store-ka ama Play Store-ka ku jira sida awgeed meesha lagala degayo barnaamij kale oo boqolkiiba boqol bilaash ah oo aan lahayn wax loo yaqaano calaamadii Kaina Masterka ee watermark aan lahayn waxyaabahaas oo dhan kii aan lahayn ayaa run ahaantii aad kala degi doontaa bartan commentiga ugu horeeya ee muuqaalka haddii aad fiiriso halkaas linkiga haddaad ku dhufato waxa ku geyn doonaa channelkeena Telegramka halkaa kala deg insha allahu tacaala kadibna soo install garayso laakiin intaanad soo install garaysan waxaa muhiima inaad iska saarto Kaina Mastertii hore kuugu jirtay waa haddii ay kuugu jirtay sidoo kale waxaad heli kartaa haddii aad u baahan tahay muuqaaladii hore oo aan kaga hadalnay barnaamijka Kaina Master commentiga ugu horeeyay taalaa marka haddii ay tahay markii ugu horeysay Kaina Master aad maqasho ama aad isticmaalayso muuqaalkan ha ka bilaabin commentiga ugu horeeya buuqo muuqaaladii hore soo daawa ayaan ku leenahay taasi waa taladeena intaa kadibna waxa weeyaan waynu ka gudubnaa warkaa insha allahu tacaala waxaanu ku dhufan doonaa halkan search buttonka kadibna projectyadan mid ka mid aynu la soo degi doonaa ama mid ayaynu halkan ka baari doonaa marka halkana laga baaraa amaba halkan run ahaantii kuwa education iyo waxyaabo fara badan haddaad u baahantaa halkaad kala soo degi kartaa laakiin already hadda waynu baari doonaa halkaas aynu ka baari doonaa tusaale waxaan ku qori doonaa
vlog intro ayaynu ku qori doonaa vlog intro baynu ku qornay sida halka kaaga muuqata kadibna waan search garaynay hadda waxoogaa khadkayga yara culus halkan u iman doonaa marka vlogskii okay vlogskii projectyo diyaarsan baa halkan horteena yimiday intaa kadibna run ahaantii mid ka mid ah run ahaantii ayaynu la degi doonaa halka sida ku muuqata dad vlogs ka duubaya vlogs waa muuqaalada run ahaantii inta dibadda loo baxo meelaha quruxda badan iyo waxyaabaha xiisaha badan la soo duuba ayaa loo yaqaanaa vlogs marka vlogyo fara badan baa meesha yaala laakiin anigu mid ka mid baan la degi doonaa tusaale ahaan kanaan la degi doonaa kaas baynu hal mar taaban doonaa marka taabato run ahaantii kuma download garaysmayo laakiin wuxuu ku tusi doonaa nooca muuqaalku uu noqon doono halkaas go'aan aad ka qaadan doonto nooca inuu noocan yahay oo kale sida awgeed barnaamijkan waxa weeyaan animationada kiyoole ayaan muuqaaladeena ku bedeli doonaa tusaalehaan muuqaal anigu aan gacantayda ku duubay ayaan ku bedeli doonaa muuqaaladan ku muuqda laakiin animationadan iyo quruxdan iyo waxa uu yeelan doonaa muuqaalku sida awgeed marka ugu horeysa waxa kaloon ku tusayaa inaad comment bixin karto comment ku dari karto ama halkan kaga dari karto sidoo kale waad like garayn kartaa haddaad account leedahay weeyaan sida awgeed marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan muuqaalkan la soo degno si aynu ula soo degno halkan aynu ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay use halkay ku qoran tahay kadibna waxa uu bilaabi doonaa downloadki sida kuu muuqata hadda wuxuu bilaabi doonaa downloadki hadda waa 0 ilaa imika muu bilaabin laakiin 1 buu ka bilaabi doonaa ilaa wuxuu gaarsiin doonaa 100 kadibna waxa bilaabi doona wax loo yaqaan assets isagana soo download garaysmi doona marka labada download markay dhamaystirmaan KineMaster 2 sidii hore loogu yaqaanay caadada ahayd ayay u furmi doontaa automatically bay u furmi doontaa kadibna muuqaalkan wax ka bedeli doonaa laakiin sida ku muuqata hadda waxay noo socda projectska inoo download garaysmaya boqolkiiba wuxuu marayaa 13 waynu sugaynaa hadda okay saaxiib yaal sida ku muuqata waxa weeyaan hadda waa uu dhow yahay wuxuu marayaa boqolkiiba 87 uu marayaa sida awgeed waxa weeyaan hadda waxa weeyaan soo download garaysmo boqolkiiba boqol ayaa in yar jirnaa kadib si automatically isku furi doonaa haddii markaa uu soo download garaysmo sida ku muuqata waynu eegi doonaa qaabka markaa uu furmo insha Allah hadda assetski baa bilaabay hadana uu download garaysmay already si dhaqso u furmaya imika sida ku muuqata KineMaster waxay u furantay sidii ay u furmi jirtay weligeed baa ay u furmi jirtay caadadeeda ahayd sida awgeed marka ugu horeysa mobilkeena multi-chief u isticmaali doonaa sidan inuu soo chiefin doonaa okay markaan mobilka soo chiefino kadib run ahaantii sida ku muuqata waxa weeyaan KineMasterkii qaabkaas ay noqotay sida ku muuqata waxay u eegaatay muuqaal tusaalahan ku edit garaynay ama inagu aynu gacanteena ku abuurnay oo kale laakiin waxa run ahaantii aan samayn doonaa halka waxa yaala clip ayaa yaala muuqaal clip qayb kamid ah talaalkana clip baa yaala halkan clip kale ayaa yaala halkan clip baa yaala waxa laga yaabaa inuu clip ka yare kooban uu yahay 1 2 3 4 5 6 clip ayaa yaala iyo waliba ka ugu dambeeya sawirka marka lagu daro 7 clip ayaa yaala meesha oo run ahaantii hadda halka saa u tirisaad arki karto sida awgeed clipyadan oo dhan waxaynu ku bedeli doonaa clip aynu leenahay sidoo kale halkan waxa yaala tagas sida ku muuqata qoraal baa yaala sida ku muuqata sida kan qoraalkan soo qormay trifle oo kale oo markaynu dul taaganahay splitka aynu ku arki doono waxyaabaha huruud oo dhan ama hurdiga ama waxa loo yaqaan jaalaha waxa weeyaan waa tagas sidoo kale halkan waxa yaala music oo runaantii musica inta badan inaan daara ma jecli laakiin musicana waa iska delete garayn kartaa cod adigu aad leedahay baad ku bedelan kartaa sidoo kale halkan clipska ama vlogyada adigu soo duubtaad ku bedeli kartaa tusaale ahaan kan sida loo bedelayo si dhib yar baa loo bedeli karaa adigoon delete garayn ayaa la bedeli karaa marka qaabka loo bedelayno arki doonaa laakiin waan isku soo laaban doonaa dhaxtaalka yar kadib Superstar Online waxay idin keentay iPhone 13 Pro Max oo kaydkiisu yahay 256 GB qiimihiisu yahay $1380 sidoo kale waxa bilaash ah galka iyo muraayada free cover and free class sidoo kale free delivery waxa lagu keeni doonaa meel kasta aad joogto bilaash sidoo kale waxaynu haynaa iPhone 11 256 GB price-ka ama qiimihiisu waxa weeyaan $620 free class free cover sidoo kale waa free delivery sidoo kale waxaynu haynaa iPhone XS Max kaydkiisu waa 256 GB qiimihiisu waa $455 free class and free cover sidoo kale free delivery sidoo kale waxaynu haynaa iPhone 7 Plus 128 GB oo kaydkiisu sidoo kale qiimihiisu waa $225 sidoo kale waa free class and free cover galka iyo muraayadu 100% waa bilaash sidoo kale waxa lagu keenayaa bilaash waxaad kala soo xiriiri kartaa hadii aad u baahan tahay iibiyaha numberkiisu yahay eber 63 4 hal hal
7 7 5 4. okay saaxiibada qiimaha badan leh waxaan rajeynayaa inaad soo daawateen xayeysiiskii iyo dhextaalka aynu soo gelinay muuqaalka. laakiin marka ugu horeysa waxaad taaban doontaa si aad u bedesho muuqaalka halkan yaala. runaantii si aad u bedesho halkanaad taaban doontaa tusaale halka muuqaalkaas hal mar markaad taabato kadibna halkan waxay kaaga soo saari doontaa option ay ku qoran tahay replace oo ah muuqaal kale kusoo bedel. kadibna replace baynu ku dhufan doonaa kadibna gallerygu geyn doonaa muuqaal anigu aan rabo ayaan kusoo darsan doonaa. replace baan ku dhuftay. hadda gallerygeeni baan kusii soconaa. gallerygeeni already waa ii furmay. okay hadda waxa weeyaan muuqaal ayaan kusoo bedelay meeshii. haddaynu runaantii soo belay garayno muuqaalka saa usoo belay garayno sida kuu muuqata muuqaal anigoo wada maraya aan duubay ayaa runaantii ayaa halkan kasoo muuqda. sida awgeed kan kalena waan ku bedeli karnaa. kan kale ku xigana waan fiirsanaynaa. isagana waxa weeyaan muuqaalka bas ba halkaa taagan soo maaha waa muuqaal meesha bas taagan yahay haddaynu belay garayno muuqaalka clipka ku xiga tay. halkan waxa taagan runaantii bas ayaa taagan. sida awgeed clipkani waa bas meesha taagan buu ina tusayaa. sida awgeed hal mar baynu taaban doonaa kadibna replace baynu ku dhufan doonaa kadibna gallerygan kaga soo dari doonaa marka waxa inagu u baahannahay ama muuqaalka anigu aan ku bedelayo. okay hadda muuqaal kale baan kusoo bedelay runaantii waxaan kusoo bedelay muuqaal meesha cuntooyin waxyaabo yaalla baan kusoo bedelay sida kuu muuqata. clipka ku xigana runaantii saas la mid un baad samayn doontaa mid walba replace halka ay ku qoran tahay ku dhufan doontaa kadibna galleryga ayaad kaga soo dari doontaa marka muuqaalka adigu aa u baahan tahay inaad runaantii meesha uu kaaga soo muuqdo. okay intaa kadib anigu muuqaalkaasaan kusoo daray tusaale ahaan aeroplaneka ama diyaaraddan kusoo daray. intaa kadib runaantii clipska saas unbaad wada samayn doontaa waad ka wada bedeli doontaa dhammaantood. sidoo kale tagaska ayaad dul tegi doontaa. tagaska aynu taaban hal mar tagaska waa halkan ku qoran ka travel ay ku qoran waa halkan yaala marka si fiican uma muuqdo tusaale ahaan tagaska hal mar baan halkan taaban doonaa ay ku qoran tahay fonts fartaad bedeli kartaa. sidoo kale colorkeygaad bedeli kartaa sida halkan kaagaga muuqata halkan sida kaagaga muuqata. markaa tusaalehaan farta colorkeygaan tusaalehaan rabaa inaan tusaalehaan gaduud baan ka dhigo si ay u muuqato. marka flogii aad uma qurux badna fartaan ku bedelay dib baan uga bedeli karaa. blue baan tusaalehaan ka dhigi karaa farta. waynu eegi doonaa marka farta tegaskeenu ka bedeli doonaa hadday ka fool xumaato. okay caddaankii bay kaga wacnayd. okay marka waxa weeyaan qoraallo adigu aad rabtaa runaantii ku bedelan kartaa iyo waxyaaba adigu aad rabto ayaad runaantii ku bedelan kartaa. sida awgeed waxaan samayn karnaa sidoo kale waxaad samayn kartaa codkan ayaad iska bedeli kartaa oo runaantii isaga laftiisa cod haddii kugu jiro adiga kugu gaari halkan aad kaga soo bedelan kartaa. sidoo kale intaad delete garayso codkan iyo mid kale ku bedeli kartaa. qoraalladoo dhan saas ayaad u bedeli kartaa. tusaale ahaan imka sawirkaas runaantii muuqaalkaas oo kale tusaale waad bedeli kartaa sidaynu hore usoo aragnay. wax kasta waad bedbedeli kartaa kadibna waad runaantii waad export garayn kartaa ama waad runaantii wax loo yaqaano isheeg gallerygaagaad ku download garaysan kartaa. sida awgeed marka ugu horeysa halkaas haddaad ku dhufato tusaale ahaan halkaas haddaad ku dhufato export ay ku qoran tahay kadibna dee waxaad geyn kartaa meesha adigu aad rabto ama waxaad ka dhigi kartaa tayada adigu aad rabto tusaale ahaan 720kaas aad u fiican. kadibna waad export garayn kartaa oo gallerygaagaad ku save garayn kartaa. waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahantay saaxiibada qiimaha badan leh. muuqaalka xiga insha allahu tacaala waxaan idin tusi doonaa waxyaabo fara badan oo iyada lafteeda lagu soo kordhiyay Kinemasterka. tan intaynu ku kulmi doono muuqaal kale oo kala lamid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.